kulantan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxa ka dhacday dhacdo la yaab leh oo dad badan argagax gelisay hadal hayn badan ka dhalisay baraha bulshada dhacdadan oo dunida argagax ku abuurtay ayaan ku hayaa hadii ay tahay markii ugu horeysay soo booqatay page-ka YouTube-ka Amira Suleymaan fadlan falowle ina soo raac oo inagu soo biir hadii ay YouTube-ka daawanaysan subscribe leh muuqaalka like garay share garay oo gaarsii saaxiibadaada aad iyo aad ayaad u mahadsantahay nin 33 jir ah oo dhashay dalka Turkiga ayaa waxa uu dilay dhammaan dadkii kula noolaa guriga isagoo dilay hooyadii walaalihii caruurtiisa iyo sodaxdiisa oo guriga kula nooleed dhacdadan argagax leh ayaa ka dhacday haro ku taala waqooyiga dalka Turkiga ninkan ayaana la ogeyn waxa ku dhaliyay falka noocan markuu uu dilay qoyskiisa iyo dhammaan eheladiisa guriga kula noolaa waxa uu qaatay gaari kadibna isaga wuxuu isku dhex dilay gaariga dhexdiisa lama oga sababta ku kaliftay inuu dilo qoyskiisa dhamaantood sidoo kalena kadib uu isaga isdilo balse wali waxa socda baaritaanka sababtaasi sidoo kale waxa la sheegayaa inuu dhaawacay tiro dhan 2 ruux oo ahaa dadka guriga diriska la ahaa sidoo kale waxa la soo sheegayaa in hooyadii 2 wiil oo isaga dhalay meydadkooda laga helay meel ka fog guriga oo ku dilay xubnaha kale ee qoyska iyaga oo meydkooda laga helay meel ka fog guriga oo ku taala harada agteeda ninkan oo meydkiisa laga helay gaarigiisa dhexdiisa ayaa waxa wali baaritaan ku wada dawladda dalka Turkiga ay ku nool yihiin qiyaastii dad gaaraya 85 milyan ayaa intooda badan waxa la sheegay in hub sharci darro oo gacanta ugu jiro sidoo kalena dadka depression ku dhaca stresska ayaa inta badan waxa ay dilaan qoysaskooda xaaskooda iyo ilmahooda kadibna iyaga ayaa isdilo dilka kuma cusbo dalka Turkiga laakiin waxyaabaha la yaab kale ayaa in 10 ruux oo hal qoysa uu dilo qofkii isaga qoyskaasi ka dhaxdashay wali baaritaano ayaa socdo ninkani wuu dhintay walina dawladda gacanta ku haysa sidoo kalena xubnaha qoyska wada dhintay ayaa wali la aasay hadii aad inta nala soo gaartay waxa tahay saaxiib wanaagsan fadlan muuqaalka share garee oo gaarsii saaxiibadaada aad iyo aad u mahadsantahay